wasiirka wasaaradda beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Geedole ayaa kormeer hawleed ku soo maray qaar ka mid ah beeraha ku yaala degmooyinka Baki iyo Boorama halkaas oo maalmihii ugu dambeeyay ay beeralayda ka soo yeedhisay qayladhaan ku aadan in beeraha qaarkood u galay cayayaan halka qaar kalena ay ka cabanayeen masiibooyin dabiici ah oo ay daadadku ka mid yihiin oo beerahaasi waxyeelay wasiir Faarax oo ka waramayay waxyaabihii indhaha soo saaray ayaa carabka ku dhuftay runtii wax ilaahay loogu mahadnaqo maanta dhaamkii xol oo dhaamka ugu weynaa gobolkan Awdal oo muddo badan aasnaa in maanta hawl fiican laga qabtay oo rajo fiican maanta ummadda u soo celinayo ummadan dadka beesha beerleyda halka degan waxaanu leenahay iskaashada oo gacanta isqabsada oo wixii dhibaha ku soo socota meesha guus baa la sameeyay jiray hadii meel daadku ka jabayaad aragtaan war dhibta noogu weyn wasaaradda beeraha wax ka qaban kari laana waxaan waa jeexjeexuna de uu markuu bilaabma hadii laga hortagi waayo markuu boholo noqdo lagama hortagi karo walaa dawladda aan ka hortagi karin taasan aad iyo aad inagu boorinayaa Abdullah Ali Yusuf